dad badan baa waxay qabaan haddii laascaanood iminka ay somalilan ka go'do inaan somalilan jiraynba de waa weaknesses xagga maskaxda yani waxa weeye waa daciifnimo xagga maskaxda ka dhacda marka haddii guddi la yiraahdo garxajisteer reeruhu way waleeyihiin guddiyo iska soo wada horjeeda marka inuu kuwana guddi la yiraahdo cadda gudiye guddi la yiraahdo de gudcur gudi aniga lafteedana aan kamid ahay markay saaqnimadu fail garowdo ee ay shaqayn weydo ayaa had iyo jeer waxa weeye ninka siyaasiga isaaq u isticmaala kelmadda loo yaqaano dir ama erer ugaas cabdiqaadir xaaji faarax xaaji cilmi oo kamid ah bahda dhaqanka ee Somaliland oo halkan oo ah hoteelka Daalo ee magaalada Burco aan waraysi gaar ah kula yeeshay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ay ku sugan tahay Somaliland ee dhinacyada amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha wana kan ugaaska xog warankan oo dhinacyo badan taabanaya aan la yeeshay daawadayaal halkan waxa igula sugan ugaas cabdiqaadir xaaji faarax xaaji cilmi oo kamid ah madax dhaqameedka Somaliland sidoo kalena ka hadla ama inta badan aan wax ka weydiino arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida mandaqada geeska Afrika gaar ahaan Somaliland ugaas ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataa telefishinka Bulsha TV waad mahadsantahay fahmiyow adiga iyo Bulsha TV iyo dhamaanintayna daawanaysa madreer Somaliland iyo Soomaalida kaleba waxa jirta in hore aad u saadaalisay xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee hadda Somaliland ku jirto maxay kula tahay adiga ka fikir ahaan in uu daba dheeraaday dagaalka laascaanood hore ayaynu uga hadalnay hawshan ama dagaalka laascaanood waxaanaynu soo dhignay saddex khiyaar oo ahaa yani waxa weeye in la kala adkaado inuu dagaalku daba dheeraado waxa uu ku soo dhacay dagaalku inuu daba dheeraado oo waxa weeye imika muddo 3 bilood ayuu almost socdaa asbaabaha uu daba dheeraaday haddaan su'aashaada ku soo dhawaado dhowr waxyaalood bay noqon kartaa aniga fikirkayga kow dagaalku wuxuu daba dheeraanayaa labada ujeede ee labada garab ee ishaya ay kala wadaan ayaa marka horeba waxay kala yihiin cirkiga dhulka waxa weeye ama bariga galbeed SSC Khaatumo qolada la baxday ama waxa weeye dhul bahantaba dheh waxa weeye iyagu waxaad moodaysay inay ku doodayaan in ay yani waxa weeye ka jeesteen Somaliland oo ay already waxa weeye ku biireen oo ay qayb ka yihiin midnimada waxa loo yaqaan Somaliland sida daraadeed way dibsanayeen ereyga Somaliland ama waxa weeye Somaliland qayb ka yihiin dhinaca kale markaad eegto de Somaliland waxay ku doodaysay in ay dadkan yihiin dad reer Somaliland maamulka Somaliland ka tirsan yihiin waxaanu gudihii reer Somaliland wax ka dhacay yihiin sida daraadeed aan looga baahnayn waxa weeye in cid kale ay soo farageliso ama ilaa heer hadii beedkeed ku leeyahay daaroodiyada kale ama marka la yiraahdo waxa weeye dawladda federaalku inay soo farageliso aanay dawlahayn marka labada